بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن والسلامي ومدى الصوماليات ميل والبو أدونك كجوكتين إذن كل سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan rabaa inaan idin sheego ummadda Soomaaliyeed waxaa jirta arin khatar ah ee khatar ku ah mujtamaceena Soomaaliyeed khatar ku ah waxaa jirta nin isku magacaabo inuu yahay sheekh ee lagu magacaabo Ahmed Umar bin Faqi Shahshahlo wuxuu sameystay urur la dhahayo Samawade wuxuu isku magacaabay inuu yahay aabihii agoonta laakiin waxa ku hoos jira barnaamijkaasi oo dhan waxa ku hoos jira barnaamij ee la dhahayo qowmuluudnimo ayaa ku hoos jirta arintaasna haddaan laga hortagin waxay sii gaaraysaa meeshaan meelka sii foolxun ayay sii gaaraysaa annagu haddaanu Soomaali nahay ما نخانو رك فولا رك عرور فولا ما نخانو لكن نكا أحمد عمر شحشحلو اسكو شيغا إنو يهي وذات إنو يهي عرورتا آبوهودي عرورتا أوانتا آبوهودي إنو يهي وحن إذن هاينا عد أسيغو كفانايو أنيغا حبلها مفولو رك أيام فولا nin saaxiibkiisi soo ku dhahayo cod sir ah laga soo duubay ayaan idin haynaa bal ila dhageysta walaalayaal niga naaga wax ma ka dhalo nimankan hadda wax ka dhalaa adiga hadii rabtid kuuntadan kaaga dhalaa baba adiga hadii hadda jacashay kuuntadan ka cunaadan ka dhalaa naaga wax ma ka dhalay hadda waxaan bilaabay nimankiina wax ka dhalo adi iyo hooyada iyo aabahan wax ka dhalaa dhilada ku dhashi iyo aniga naaga wax ma ka dhalo nimankan hadda wax ka dhalaa adiga hadii rabtid kuuntadan kaaga dhalaa baba adiga hadii hadda jacashay kuuntadan ka cunaadan ka dhalaa naaga wax ma ka dhalay hadda waxaan bilaabay nimankiina wax ka dhalo adi iyo hooyada iyo aabahan wax ka dhalaa dhilada ku dhashi iyo maanta waxaa sharaf noo ah inaan xamarweyne aan ku furno dugsi qur'aan ilaahay waxaan ka baryaynaa dugsigan dadkii gacanta ka geystay in ilaahay jasadooda jannada ka dhigo insha allahu tacaala intaan talaamiid oo qur'aanku baranaysana qofkii wax ka geystay horta wuxuu abaalkiisa ilaaha gudaya insha allahu tacaala walaalayaal waa daawateen ninkaas saas u hadlaayo walaalayaal ilaah baan idinku dhaariyey maku aamini karnaa caruurteeni caruur masaakiimo ah yaryar agoon ah maku aamini karnaa ninkaasi ninka ku faanaya aniga ragga ayaan fuulaa ku faanaya war caruurku maku aamini karnaa Soomaaliyeed wallahi waa baabaanay haddaan Soomaali nahay 27 sano ee la soo dhaafay ayaan suuq walba dayuus walba waa in soo hunguriyay maantana waxaan maraynaa in caruurteeni aan ku aamino nin qowmuluud ah nin ku faanaya aniga caruur ku faanaya aniga ragga baan fuulaa walaalayaal waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay war ninkaa ha laga digtoonaado ninkaa ha la iska ilaaliyo aniga iyo teamkeegi BYC iyo teamka barnaamijka xaqsoor waxaan la soconaa ninkan muddo dheer ayaan daba soconaa muddo dheer soo daba soconay waan baareeni waxaan idin hayaa qalcado fara badan hadallo fara badan oo asiga duubay waxaan idin haynaa xataa gabar oo sixray ayaan idin haynaa gabar oo asiga sixray oo uu ku meheriyay nin seedigiis ah ku meheriyay ayaan idin haynaa ninkan wuxuu ka soo guuray wadanka Denmark ayuu ka soo guuray wuxuu ugu soo guuray arimahan foosho xun dadkii magaalada Denmark deganay
ku cunsuriyey ila Soomaali baan nahay muslimiin baan nahay ma naqaana anaga nin caruur fuula iyo nin kala fuula ma naqaano mar walbo meesha oo tago wuxuu ka dhax abuuraa barnaamijkan qoomuluudnimada ayuu ka dhax abuuraa Denmark ayuu deganay waa ka guuri Sweden ayuu degay waa ka guuri wuxuu degay London ayuu degay beeskiisa hadda fadhigiisa London waaye waxaan idin haynaa adresskiisa gurigiisa sidoo asigu u nool yahay ayaan idin haynaa laakiin hadda maantadan idin la hadlayo wuxuu joogaa magaalada Muqdisho joogaa gaar ahaan degmada Xamarweyne علماء الدين كالصوماليات أقونيانك هاوينك دالن يرد أول وحان ugu baaqaya in ninkaasi liska ilaaliyo ninkan arinta uu soo wado ninkan waa arin aad iyo aad u foolxun uma dul qaadanayna anaga arintan uu soo wado marka si gaar waxaan ugu baaqaya si gaar waalidiinta ku nool degmada Xamarweyne ee maanta ku aaminay ilmahoodii inuu dugsi ama madcamad u furo oo dhabtiisa oo saarta ilmahoodii bal u fiirsa ilmaha waa ku dhagdhagaa ilmaha ayuu ku dhagdhagaa oo dhabta saartaa ninkan waa nin qoomuluud ah ninkan haliska ilaaliyo ninkan waa nin saaxir ah waa nin qoomuluud ah waa nin fasahaadsan umadayna haddaan laga qabanin wallaahi Soomaaliya waan hoognay haddaan ninkan iska qabanin waan hoognay Soomaaliya waxaan idin leeyahay waalidiinta degmada Xamarweyne ku nool gaar ahaan kuwa ay caruurtooda madcamadiisa dhigtaan dugsigiisa dhigtaan walaalayaal hadda aniga shaki waxa igaaga jiro inuu caruurtiina qaar uu faraxumeeyay ayaa shaki igaaga jire caruurta isbitaal hala geeyo war caruurta isbitaal hala geeyo war caruurta halaga warqabo Soomaaliya waa hoognay Soomaaliya qof walba waan iska aaminay anaga qof walba waan iska aaminayna qofkii nadhaho wax baan idin siinayna dugsi wax baan idin siinaa nadhaho ama dugsi baan idin sameeyna ama caruur baan wax idin ku yeela war anago ka fiirsan ayaan aaminaa war waa inaan ka fiirsanaa walaalayaal waxaan idin ku baaqayaa waalidiinta ay caruurtooda madcamadiisa dhigtaan ninka lagu magacaabo Axmed Cumar Shaxshaxlow waalidiinta ay madcamadiisa dhigtaan dugsigiisa dhigtaan walaalayaal caruurtaada isbitaalkii ee soo baar beri waxaan idin soo bandhigi doonaa waxyaabo kale qalcado kale ayaan idin soo bandhigi doonaa wabillahi tawfiiqda ilaahay waafajiyo wadankeena ilaahay noo hagaajiyo kuwaan ee saaxiriinta ah sixiroolayaalka ah ee qoomuluudka ah ilaahay hanaga qabto ilaahay tawfiiqda waafajiyo maca salaam waa inoo berito